gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ucid injineer Faysal Cali Waraabi ayaa waxa uu eedihii iyo hanjabaadii ugu cuslaad u jeediyay madaxweynaha Soomaaliland oo uu ku sifeeyay in uu yahay khaayin waa sida uu hadalka u dhigay sidoo kale gudoomiyaha Faysal Cali Waraabi waxa uu ku eedeeyay madaxweynaha Soomaaliland in uu iibiyay dalkii kadib markii ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ugu ballan qaaday lacag hadii uu wada hadal la bilaabo madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo gudoomiyaha Faysal oo arrimahan ka hadlaya waxa hadaladiisii kamid ahaa وأكتينو مدحوينها مصبحي إمك لبض سنة ضدي ديرات بوجوجي مدحتوي ده لبض سنة واحد كل شقين إني موسى إنه لا شقينه وأنا كنت دينه بالكوبريشن سيدي أي وضن كإنه قلت عليه دورشة سؤال ياد إنه مهمة أيها هاد موسى سكستوا يالله اللي بقى سبيشال لبض حسبوا اسكو كينيني قولدان ودان دور jeer baan ka kicinay meelaha ay qabsadeen iyo ku mahadsan international community way noo yimaadeen go'aan bayna la gaareen waan wada saxiixnay laba jeer labadii jeer ba hadda waxa jabiyay madaxweyne Muuse jabiyay mar uu baarlamaanka ilaa mooshinka hal gelinina iyo mar uu xubin lagu muransan yahay oo sharcigu diidiyo intuu keenay waliba uu hadda la yiri reer baa diidan ولكن وين أركي شرني حبين للديدو أو حدودها للديدو وحكين شرتي أصحابته هذا ما هين مدحوين وحبون وكانوا أي كونترفيشن نقطة بقصوا ريرنا أو وناق يشرف كمدن سوماليان أيوة إذا هدي أن حبين تاس عليو شرعي عن دوني رير بحناقية ووحنا صومرين تازو حكوز المسكحي يسوي رير كوكا وحكى له كوكو في المتشو وحوي موسى بيحي wax kasta waa ku tayn labada sanadood dalkeena muran ilaa muran ma ahaane dibadda ayaa wadanka xukunkiisi dibadda waa ka fadhiid buu ka noqday gudihii way ortino wasaarad qoro shaqaysa ma jirto wasaaradda ay lacagta ay soo ururay oo maanta cashuurta halka marinayso ay inaga wareegeen baacmisharigii oo dhame oo ay u wareegeen Djibouti iyo Boosaaso cashuur taa moojaane wax kale maanta wasaarad shaqeynaysa dalkeena fakshan garanaysa ma jirto waa ogtino dynamics ba ka socda geeska Afrika yaa ka socda isbedela ka socda isxulufa ka socda qaarada lagu tartamaya adduunka maanta waa xeebteena waa reersiga way maanta yaa reersigeeni ka bax yaa ka taliya waxa ka taliya farmaajo Djibouti oo ogti inta xeebta ka gasho maanta xeebteena waxa ka taliya in yar oo farmaajo ilmaadiri ayaa ka wakiila oo galay shararka reersiga loo sameeyay Muuse bixi wixii gudihii u baabiyo haddana dalkii uu khiyaamo ku sameeyay telefoon baa la ii soo diray 10kii bisha diyaarad biska fuula 800 milyan oo dollar oo la yiri Soomaaliya waxa la siinayaa marka laga dhaafo deynta ayaa la yiri boqolkiiba 30 baa yeelanaysan laakiin bishuruud la yiri farmaajo la kulma oo Djibouti kula kulma message-ka waxa siday ninkii inta siday international committee siday waanu diidnaa aqoon rigna fadhiyo waanu gacanta hoos galsan meena dawladana heshiiseen 800 milyan baa loo sheegay hadaan idin sheegay waa ka hangalaysay shan iyo afartan mirir ayuu dalkii Soomaaliland ku xaraashay 45 mirir qoray wada joogeen maxaa sabab markaas madaxweynaha ra'iisul wasaaraha Itoobiya farxadii wuxuu tagay wadanka ilaa Imaaraadka wuxuu yiri Soomaaliland iyo Soomaaliya waa heshiisay waxay ka codsadeen inuu farmaajo bixiyo oo kaliya magaalan saay raali galin ka bacdina alloore Hargeysa la geeyna alloore saasi oo sheekadu ku timi waa iibsanahay Soomaaliland marka dabaaldeg ka dhacay xamar iyo maxay magaalada saay meeshii garbahaar iyo koonfurdhan alloore nimanka soo socda way ragii dadkii mucaaradka ahaa ee ku taagnaan waxay leeyihiin war waa intaas ku filaydeen madashii oo kale iyo horta wuxuu sameeyay khiyaanad cudma uu sameeyay hadday maanta jirto golayaal iyo shacbina dee uma suurta gasheen waa ninka aan markii loo yeeray oran maxay igu yeerisan waa ninka markii uu soo noqday ummadda uu waramin wax ku wada hadleen
وانك مركي إما كويمي أحمد شيدان وحكوا هذا هذلين إلا وذاكين لما تشربي جارس كواركين هم صباح لي هبيني مدي نرجو كسر صوت لما يستبوا أفر ويصيروا يدوا يكاروا عشانه بعطوا ما كانوا شيكي وحيا لكن نحكي له شيكي كمحرم وكتجي موسى وكتجي مدحنمو يا الشرع وكتجي هذا وحنا وشيجنا هذو الشرع كتجي والشرع وكتجي وحاو كل دقائق أنا قلنا الشرع هو كل سعون مدحوين نقول مايو مدحوين موسى بيحبوا نقولنا هذو إلى أعد يفرضون بعبينيا أو الشرع أن وقتي قال من جينيا أو شربان طلانيا وحنا مدحوين ومتين هذو بش جودي هذا تايم سكال سي لا بش تبين كده هذا لو قرق هذا وياه مدحوين نقول مايو عشور وقاضن يعني مشفته عشور حمودي أبي بحي مودي عشور شعب السماء بحيه كردان كشرية كردان كشرية كردان كشرية كردان كشرية وحنا كشرنا مع العقد قالت تخاين كنت وليبه وخاين من العدم وي هيا لقى حسمون ما أنت غير الدبل الجلي أنا ما شفته غير كود واركي سو ما وياركتي أدونك واركي وخاين أفكي شيء أفكي سلهن هران وشاك لما قاعد كاسود دمي أنا أفوينها نقول نقول دوني أفوينا ردني أفوينا ردني أفوينا ردني وأنا قردنا هذا دل كان أبي يسكر سواء قردنا هذا قاوم بضحيس الله يبلاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد الرحيم مولى إسماعيل شبكة دورة كيليس نيوز مقالة هرقيسة.